ka tahay munaasabada waaweyn oo lagu xusayo maalinta deegaanka adduunka ka qabsoomaya guud ahaan caalamka. Si gaar ah munaasabada maalinta deegaanka adduunka ee Soomaaliland lagu qabtay oo ka dhacday hotel guuleeda magaalada Hargeysa, waxaa diiradda lagu saaray helidda tamartii beddelka u noqon lahayd dhuxusha, iyadoo munaasabadaasi shirkadaha ka shaqeeya tamartii Soomaaliland ay soo bandhigeen qiimo dhimis ay ku sameeyeen adeegyada dhinaca tamarta ay bixiyaan. Waxaa munaasabadaasi ka qayb galay marwada madaxweynaha, wasiir ku-xigeenno, maareeyayaal, agaasimayaal guud, hay'adaha iyo ururada ka shaqeeya deegaanka, ardayda jaamacadaha iyo marti sharaf kale. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Maxamed Cilmi Xuseen oo go'aarinta halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay qiimaha ay adduunka ugu fadhido maalinta deegaanka adduunka, isagoo sheegay in 44 sano laga joogo markii caalamku isla qaatay maalintan, taasoo looga gol lahaa in bulshooyinka caalamka lagu jeediyo deegaanka. wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Muro Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo halkaasi iyaduna ka hadashay ayaa mahadnaq u dirtay cid kastoo ka shaqeysa deegaanka, iyadoo si gaar ah ugu mahadcelisay madaxweynaha Soomaaliland ay ku tilmaantay in digniinooyin fara badan oo u dhaqangeliyay kuwaas oo ku taxalluqa badbaadinta deegaanka. waxaa horta sharaf iyo qadarin mudan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noo soo saaray ee noo qoray digniinooyinka iyo xeerkii u dambeeyay sanadkan soo baxay January 10keedii golaha baarlamaanada ee iyaguna isku taxallujiyay wasaaradaha nala shaqeeya ee si wanaagsan oo la wada shaqeeya iyo wasaaradda deegaanka shaqaalaheeda oo madaxda ka yahay DG-ga Maxamed oo ilaahay baa mahad leh meel walba isku taxallujiyay in ay gacanta saaraan. maanta anaga hadalkan igama fura, maanta kulay in badan baa la hadlay oo dadkii wixii noo sheegeen. shirkadaha maanta halkan isugu yimi waanu mahad celinaynaa sida wanaagsan uga soo qayb galay, iyo shirkadda soo socotay iyaduna inooga faa'iideyn doonta geedka garanwaaga. ilaahay baa gidigood ka jisaysiinaya. waa min wali Sheekh Maxamed Jirdi marwada madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasi ka hadashay ayay ka warantay muhiimadda xukuumadda Soomaaliland ay siinayso ilaalinta deegaanka. dawladdu waa u diyaar siday idin gacan qaban lahayd, siday idin la shaqayn lahayd, siday idinku fududayn lahayd cashuur dhaaf iyo wixii la mid ah, laakiin kubaddu idinka idinla taallaa sida shacbiga Soomaaliland uga xaqabeeli lahaayeen inay dhirta badbaadiyaan ay gaas shitaan. idinka idinla taal kubaddu insha Allah billahi kariim. duulimaad kuma lihiina macaash shaan waayo waxa u furateen waa macaash, laakiin dareenka iyo naxariista iyo arxanka dadkiina iyo idinka maqnaa. dawladda Soomaaliland oo arrintaas ay wakiil uga tahay wasaaradda deegaanku waxa ay ka hawlgashay sidii loo dhiirigelin lahaa isticmaalka geedka garanwaaga ama Prosopis la yiraahdo oo laga heli karo xaabo iyo dhuxulba, taasoo bedel u noqon karta dhirta kale ee la gumaadayo. wasiirada wasaaradaha warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaan iyo ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Xuseen Aadan Cige Xusardey ayaa ka hadlay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay guud ahaan caalamka, iyagoo hoosta ka xariiqay xalka arrintaasi lagu wajihi karo. deegaan markaynu ka hadlayno runtii waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye waxa mar walba saameyn ku leh cimilada waqtiga jirta. cimilada adduunkuna waxa dhama inay waqtigan xaadirka aad isu bedelayso. marka waxaan soo jeedin lahaa in kambaniyadu iyo iyagoo adduunyada kalena kaashanaya, dawladdana kaashanaya, sidii loo jebin lahaa gaastaas falowgeed la qabto. waxaa dhaba oo la hubaa mashaariicda adduunka dalal fara badan oo adduunka ah inay guuldarraystaan. sababta ay u guuldarraystaanna hadduu deegaan yahay iyo hadduu mashaariic kale oo loogu talagalay inay mashaariicda dalka wax u qabtaan ay yihiin, sababta ay u guuldarraystaan ma aha dhaqaale darro, ma aha tiknoolajiyo xumaan, ma aha dad aqoon la'aana oo maxaan ku dhahdaa aan meesha jirin oo aqoon maxaan ku dhahdaa aan lahayn. runtu waxay tahay waxay u guuldarraystaan wacyigelin la'aan bay u guuldarraystaan. haddaad kambaniyada tihiin iyo haddaad deegaanka ururadiisa tihiin iyo haddaad wasaaradda deegaanka tihiin, warde annagaa idiin hayna sidii wax loo fahansiinayay dadka, annagaa idiin hayna reediyoyoodii, annagaa idiin hayna dadkii tababarnaa ee maxaan ku idhaahdaa shaqadoodu ay ahayd inay wacyigelinta sameeyaan. deegaanka iyo degalka ilaahay ku manaysay. markaa maanta oo ah 5 Juun, dad badan oo adduunka ka mid ah waxay isweydiinayaan maxaa sababay in cimilada adduunku isbedesho, bini'aadamku intee in leeg bay saameyn ku leeyihiin
maxaa laga qaban karaa isbeddelka cimilada adduunka. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil xubno ku hadlayay shirkadaha tamarta ee Somgas, Unigas iyo Sahal Gas iyo waliba xubno ku hadlayay afka hay'adaha iyo ururada caalamiga ee ka shaqeeya deegaanka iyo jaamacadaha dalka. gabagabadiina waxaa halkaasi wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baadare ay shahaado sharaf u guddoonsiisay marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamina Weli Sheekh Maxamed Jirde. xuska munaasabadda maalinta deegaanka adduunka ee laga xusay Soomaaliland waxa uu noqonayaa xuska 44aad ee adduunka laga xuso waxaana looga galeeyahay qabashada xusaskan si dunida iyo dadka caalamka loogu baraarujiyo qiimaha deegaanku leeyahay iyo sida ay u ilaashan lahaayeen. waa Cabdi Casiis Caydiid Cilmiye Samatan Maxamed Maxamuud telefishinka qaranka magaalada Hargeysa.